soo dhaweynaynaa runtii shirkii labada maalmood socday halka ka dhacay shir fiican oo si fiican loo soo abaabulay si fiican loo soo qabtay buu ahaa xildhibaanadii shirkaas soo abaabulay iyo guddigii soo abaabushay intaba aad baan uga mahadcelinaynaa shir qurux badan buu ahaa warmurtiyeed ka soo baxay oo shalay soo baxay oo xalay aan akhrinayna runtii warmurtiyeed midnimada Soomaaliya iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed iyo xoojinta dawladda federaalka iyo dawladda dhexe ku fadhiya buu ahaa waa wax loo baahnaayo maanta dadkii waxaad moodaa inay si u kala tigtagayaan dawladnimadii muddada badan la sugayay markii dambana lagu dhisay dhibta iyo rafaadka badan inay dadku hadda qaybtood aad moodo inaanay aad u danaynayn marka in midnimada la xoojiyo Soomaalinimada la xoojiyo waa muhiimadda iyo jiritaanka ummadda Soomaaliyeed waa bogaadinaynaa isu imaatinka iyo ballamaha dambe loo ballamay waxaan rabaa inaan wax yar taabto oo maamulada hadda la sameyn doono iyo maamuladii hore u jiray meeshaas la rabo in maamulka laga sameeyo ama kan SSC ha noqdo ama kan maakhir ha noqdo ama hadhowto wixii laga damacsan yahay labadooda ha noqotay territory-gaas waa territory Somaliland sheegato jamhuuriyadda Somaliland nimanku waxana yiraahdaan waa deegaan ay geographically ugu salaysan oo dhulkii Ingiriisku xukumi jiray waxa laga yaabaa dadka qaar markay arkaan arrimaha in laga hadlayo in la yiraahdo Puntland baa loo daleeyay meeshan gaalo iyo islaam Somaliland bay horta u yaqaaneen intii hadda meeshaas lascano dagaalku ka dhacay oo si xoog looga la wareegay Somaliland baa gaalo iyo dadka ajnabiga ay u fahmeen inaanay nimankan dhulka lahayn oo dadkii laha ay joogaan oo maakhir iyo dhinacan kale ah khaatumo intaba dad ka duwan dadka deegaanka Somaliland sheegta ay jiraan meeshaas wali gaaladii oo ugu horeeyay dawladda weyn ee siyaasadda adduunka ba hogaamisa oo Ingiriiska la yiraahdo ma ay ogol wax Somaliland la yiraahdo waxaan hayn inay ugu yeedhan deegaanka iyadoo dawladda federaalku leedahay waa aqoonsanay maamul baa ka jira dadku halka ma wada aha bay waxay ku sii adkeysanayaan in la ilaaliyo Somaliland marka meesha waxa la rabo in la xaqiijiyo waxay tahay dhulkan dhul dad kale leeyahay weeye Somaliland ma leh wixii iyagu ay rabaan baa ka dhacaya iyaga maamuladooda u samaysanaya dadka kale tolka ah Puntland jooga ama Soomaali weyn inteeda kaleba si midnimada loo xoojiyo waa in meesha maamul la yaqaan laga sameeyo muhiimaddu waa inta qoliyo dhinac kasta diidaba marka far la dhaqaajiyo waxay yiraahdaan Puntland baa la duminayaayo aan waxaan leeyahay inteena waa intii Puntland lagu yaqaanay intii waagi hore Puntland maagi jirtay hadda siyaabo kale u shaqeeyaan marka Puntland iyo maamulada kale intuba waa isla baraari doonaan wax isla weeye meel loo waayay maayo ugaas Cabdiqani baa xaggana madax u noqon kara xaggana joogaya marka waxayna waa wada yeelanaynaa waxa aynu wada dhalino aan wada baraarino midnimada hal la ilaaliyo qolada warsangeli si fiican bay hawsha u wadaan reer maakhire inta gudaha ku jirtay deegaankii joogtay inta garow joogtay midnimadooda hal raadiyo picture ka fiican dadka hal tuso khilaafka hal yareeyo kulli mid khariman la waayay maayo hawshana saan ku wadna waa salaamantii salaamu calaykum